Kusoo dhawaada videogeena maanta anagoo ku eegi doona waxay ka dhacay Kenya sanadkii markuu ahaa 2007. Aan ku bilownay Kenya waxay wajahday mid ka mid ah muddooyinkii ugu mugdiga badnaa taariikhdeeda. Wax walba waxay ka bilaabmeen doorashooyin balse waxay ku dhamaadeen rabshado, dhimasho iyo barakac baahsan. Videogeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa sheekadii dhabta ahayd ee qaraxday kadib doorashadii muranka dhalisay ee Kenya. Taariikhda markii ahayd 27 bisha December 2007, shacabka Kenya waxay u dareereen codbixin taasoo u dhaxaysay madaxweynihii talada hayay markii waqtiga oo la oran jiray Moi Kibaki iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo xisbiga ODM watay. Raila ayaa ahaa musharaxa ugu weyn ee la tartamay madaxweynaha talada hayay waqtiga Moi Kibaki. Markii codbixinta ay soo dhamaatay, natiijada ayaa keentay muran aad u weyn. Guddiga doorashooyinka waxay ku dhawaaqeen inuu madaxweynihii hore ee talada hayay waqtiga Moi Kibaki uu guuleystay mar kale, balse mucaaradka iyo taageerayaashiisa waxay ku gacan saareen natiijada iyagoo dhahay waa la musuqmaasuqay. Markii la shaaciyay natiijada, meelo badan oo dalka Kenya ka mid ah waxay wajaheen rabshado. Mucaaradka ayaa bilaabay inay mudaharaadaan, balse waxay isku beddeshay rabshado qabiil ku saleysan. Dadkii lagu tuhmay in ay taageersanayeen madaxweynaha guuleystay ee Moi Kibaki, gaar ahaan qowmiyadda Kikuyu, ayaa bartilmaameed noqotay. Guryo ayaa la gubay, dad ayaa la dilay, kumanaan ayaa barakacay. Waxaa la xusay in ka badan 1,100 qof la dilay iyo in ka badan 600,000 oo qof ay barakaceen. Magaalooyinka Eldoret, Nakuru, Kisumu iyo Rift Valley ayaa noqday xarumaha rabshadaha culus ay ka dhaceen. Iyadoo xaaladda sii xumaanayso, beesha caalamka ayaa soo faragelisay. Xogayaha hore ee qaramada midoobay oo lagu magacaabi jiray Kofi Annan ayaa wadahadal soo dhex dhigay madaxweynaha talada hayay waqtigaas Moi Kibaki iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Wadahadalo dheer kadib, ugu dambeyn waxaa la gaaray heshiis. Waxaa la sameeyay wax la dhahaa Grand Coalition Government oo ah dowlad wadaag. Kibaki wuxuu sii ahaa madaxweynaha, balse Raila Odinga wuxuu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalka Kenya ay yeelato. Taariikhda markii ay mareysay 28 February 2008, waxaa lagu dhawaaqay heshiis siyaasadeed. Intaas kadib, waxaa bilaabmay isbeddelo qaran oo dhameystiran. Waxaa la abuuray guddiyo sharci oo dib u eegaya dastuurka dalka, taasoo horseeday in la qoro dastuur cusub oo la ansixiyay sanadkii 2010 afti dadweyne kadib. Dastuurka cusub wuxuu keenay nidaam dowladeed oo ay ka mid tahay 47 dowlad hoose iyo dhisidda hay'ado madax bannaan sida maxkamadda dastuuriga ah iyo guddiga doorashooyinka. Si looga bogsado dhaawacii dhacay, waxaa sidoo kale la sameeyay guddiga runta, cadaaladda iyo dib u heshiisiinta oo lagu magacaabi jiray TJRC, kaasoo baaritaano ku sameynaya dhibaatooyinkii taariikhiga ahaa ee qabiilka ku saleysnaa ee dalka Kenya ka dhacay. Warbixinta guddiga dib u heshiisiinta TJRC waxay iftiimisay baahida loo qabo cadaalad bulsho
iyo dib u habeyn dhanka ilaha dhaqaale iyo maamulka ah. Markii la gaaray doorashadii xigtay ee 2013, Kenya waxay gashay nidaam cusub oo xasilooni ka muuqdo, halkaas ay ku tartamayeen madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo xisbiga Jubilee ka socday, waxayna ku guuleysteen doorashooyinka. Inkastoo Raila Odinga uu natiijada ku gacan seeray, nasiib wanaag rabshado hor leh ma dhicin sidii kuwii 2007. Waxaa la dareemay in dowladnimada ay horumar gaartay. Ugu dambeyn sanadii 2018, Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta waxay si lama filaan ah iskugu yimaadeen heshiis taariikhi ah oo la yiraahdo The Handshake, taasoo astaan u noqotay dib u mideynta dalka Kenya. Sidaas ayay Kenya ugu gudubtay marxalado mudan siyaasadeed oo dhiig ku daatay, una tillaabsatay waddo cusub oo ah dimuqraadiyad, wada noolaansho iyo isbeddel dhab ah. Ugu dambeyn, sheekadii Kenya 2007 waa cashir naxdin leh, balse sidoo kale waxay tusaale muujinaya awoodda wada hadalka. Inkastoo ku dhawaad 1 milyan oo qof ay barakaceen, Kenya waxay ka kortay burburkaas. Videogeena maanta waa naga intaas. Dhageyste, wadankeena Soomaaliya markuu nabad noqon doonaa asagana sidii dalka Kenya oo muran u soo maray uuna ugu gudbay. Videogeena maanta waa naga intaas. Tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh. Please channelka hadii isku cusub tahay subscribe noo saar. Mahadsanid.